ورما dir أنا wax isqabsan kara ilaa ma isaaqo cadan waxay ka ahaayeen ninka booliiska haysta ayagu maanta in la yiraahdo isaaq baa oroma galay ama oroma isaaq gashay waa wax aan suuro galay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا أمد الصوماليين ميلي جوكتبا تاليو دبدبا مشرقي ومغربا انتا كدب waxaan jeclahay inaan ka hadlo mowduuc yar oo runtii ayaamahan suuqa ku baahay oo la isla dhex marayo Soomaalidu waxay tahay niman oroma ah oo Hargeysa yimi oo yiri isaaq waa oromo. arrintaas runtii aniga taasiir gooni ay igu reebtay. leesh nimankaa muddo dheer baan la cashay ilaa 35 sano oo dhow ama aan idhaahdee 40 ku dhowaad wada shaqayn saaxiibnimo wada cun kaftan intaas bayna soo dhex martay. ragga maanta jooga khaasatan magaalada Dooxa 10 sano wixii ka hor joogay ay garanayaan Abu Cali. aniguna dad badan oo maanta Hargeysa jooga iyo Burco aad baan u garanayaa. waxaa ka mid ah doctorka indhaha ugu caansan Afriqiya iminka oo Maxamed oo Hargeysa jooga oo ahaa ninkii dhakhtarka ugu weyn Dooxa ka shaqaynayay mansa fiican ka hayay. waxaa ka mid ah nin wasiir lagu yiri waa noqday oo ahaan jiray wasaaradda maaliyadda isuduwaheeda Qatar Waliyaa Rashiid. waxaa ka mid ah nin nabadoon oo la yidhaahdo Dhabo hadeer ma soo koobi karo. dadkaasaan aad isu niqiin soo wada noolayn dhalinyaradooda oroma hadda kolley waa dad jira oo uma jirto muslim iyo gaalo iyo kuwa aan diinba haysan bale baa laygu yiri. marka waana kolley Afriqiyana waa lagu wada nool yahay laakiin wax isqabsan kara ma oroma dir anigu wax isqabsan kara ilaa ma arrintaas Soomaalidu markii la baaray research lagu sameeyey waa dadka geeska Afrika la yiraahdo iyagaa leh ilaa Zanzibar ilaa Tanzania ilaa maxaan ku idhahdaa Mombasa. haddii la qoday oo research iyo lafihii la baaray iyagaa laga helay. dadku awal naas bay u haystaan xagga carabta xiriir dheer bay la leeyihiin la lahaayeen boqolaal sannadood isdhexgal. masalan haddaan dib ugu noqdo isaaqo cadan waxay ka ahaayeen ninka booliiska haysta ayagu baa laygu yiri ninka maxkamadda sare joogaana iyagu ah. quraabatan waxaa lagu calculationka lagu sameeyaa inay Soomaalidu ka horeyso
xagga qurbaha afrikaanka ilaa 150 sano waana rees gooniya waa nooc gooniya baa gaaladu u haysataa ama adduunku u haysataa maanta in la yidhaahdo isaaq baa oromo galay ama oromaa isaaq gashay waa wax aan suuro galahay dadkaa wixii sameeyana kolley ujeeday ka lahaye soomaalidu waxay ka mid tahay jaamicat alcarab jaamicat alislaam jamciyadda islaamkay ka mid tahay jaamicat alcarab bay ku jirtaa markaa magacu waa qaali wax lagu cayaari karo maaha runtii waana uga taxsiyadeynaya waxaana ku malaynayaa meelka dhac weyn bay ku tahay isaaqa soomaalida dowladnimadeeda jiritaankeeda dadnimadeeda ummadnimadeeda waa meelka dhac weyn carab weebay yihiin waa niman reer saqaaqa waana niman dadnimadooda iyo actifnimadoodaba ee afrikaanka ka horeyso soomaalidana uulaabayba u ahaayeen xagga ilbaxnimada marka arrintaas intaan anu ka ogahay oromo meelayna ka soo gasho waa jiraan dad oromo noqday oo berigii dagaalkii axmed guri isku dhiibay qabaa'il kale sida dishaa ka mida jarteenkaa ka mida waxaa ka mida niman dhulbahantaa oo jooga wallo magaalada diisi waxaa ka mida niman habar yoonisa oo iyaguna jooga diisi niman diishaa oo iyaguna jooga diisi meesha la yidhaahdo oo badan kuwaasaa bayna ka badnaa haddaynu kolley xabashi soo gelinayno dhulka marka anigu arrintan waxaan u arkaa arrin siyaasadaysan oo wixii caqli iyo cilmi iyo aqoon leyna aanay rumaysan karin arrintaana in halkeeda lagu xiro baan jeclahay saylac waa meel taariikhiya nimanka ciisahana deganaa bedbenana mar turki baa yimi mar ingiriis baa yimi odayaashii halkaa joogay waxay kala qorteen waa la garanaya saan bay wax ku kala qorteen maanta in oromiyo kabada inuu sheegto waa shay mustaxiil iyo iyadoo soomaali la waayo aniga saas ilata hadda ka hor baa waxa ka dhacday dagaal baa wuxuu ka dhacay qabaliya meel la yidhaahdo dusha hargeysaa bale kubaad leeyahay eryadaas boliiskaa waxaa haystay nin la oran jiray kosofaare telefoon ma jirin iyo mobilka markuu dagaalkii habeenkii dhacay casarkii baa loo sheegay labada reer waxay kala ahaayeen adna reerkeeda iyo reerka musabix askartiyo aan diyaar ahayn qaar fasax jiraan qaar iska jiifaan qaar madani labisan yihiin buu firimbi ku dhiftay markii warkii soo gaaray waa la isu yimi wuxuu yidhi nasaara baabuurta waxaa la yidhi waa habeen waa gabaldhac meeshana habeen baynu ku beeganaa wuxuu yidhi intii shacabku berri isku waaberiisan lahaa oo berri islayn lahaa askarteenna hala lahay nin baa wuxuu gu yidhi qaar baa ku fuulay iyagoo dher madaniya sita habeenkiibu gudooy ku kaxayey
waxna waa haleeli waaye waa ka tegi aroortii markii waagi beryey reerii isugu burtay iyuu ciidamadii dhexgii marka cad noole baan maqlayay laascaanood hala baabi'iyo laascaanood kale hala dhiso waxaan malinayaa intaan qurbaha joognaba dhulbaantuu arabka si gaaray u xeerin jireen abaysaa qaba marka waa nasiib daro ninkii saa sameeyey reerkiisii iyo magaaladiisii in la yidhaahdo xagga kale ha loo rogo abaal looga dhigo waa nasiib daro war wixii ka dhacay laascaanood waad ogtihiin 8 bilood baa madfac ku socday caruur baa ku dhimatay dumar baa ku dhintay hanti baa ku baabaaday 8 bilood oo xilala ka dhashay baa la garaacay waxaan u malinayaa boqorarkayn iyo balli cumar waxaa ka dhacay waa wax la xallin karaa labada reerba waxaan ugu baaqayaa inay nabadda ku soo dabaalaan oo dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho dadka kaleetoo u soo saxabtumayana waxaan leeyahay war laga daayo soomaali intaasi ku filan intii kalaaba loo soo dhaaranayaa dhulbaante maanta waxaa ku dhacay wax qarsoon maaha shacbiyan dal ahaan iyo dad ahaan wixii ku dhacay waa la ogyahay dhiig badan baa kaga daatay dad nooc walbada baa kaga dhintay waxay u dagaalamayeen inay noqdaan maamul madax bannaan oo dalkooda iyo dadkooda u madax bannaan haddase waxaan maqlayaa ingiriis baa soo dhex gala okay ingiriisku maba xumaa soo dhex galo markii la xasuuqayay 8 bilood oo madfaca iyo kaaruu ku socday muxuu uga hadli waayey waa midda labaad anu waxaan leeyahay waa narsi dhulbaante u yimi waa inay wixii ku dhacay dadkii laga xasuuqay mar hadduu ingiriiskii maanta yimi ee adduunka la garamaan meel walba waa joogaan mutacalimiin bay leeyihiin aqoon bay leeyihiin waxaan leeyahay tan waa in la dhigo oo wixii hore ingiriisku u geystay ay kala xisaabtamaan oo adduunyada u sheegaan magdhowna u sheegtaan intaasaan leeyahay isaadna waxaan leeyahay war mar ba isku dhimataan mar labaad ha isku dhimanina wasalaamu calaykum